السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أصحابتي إيجو حرنكم إيجو عصب دمان سود وهذا ومركل إيه مقال عصب مقال كانوا حقول تلقلي هويوين كاستعرورت اللي بلاد قالي oo cuntada ay ku cusub tahay cuntooyinka qaabka u kaydsan karaan ay u sameyn karaan cuntooyin jilicsan laakiin ilmaha wax badan u tirayo ay ka heli karaan koriimo sax ah oo dhameystiran cuntooyinka had iyo jeer aan soo geliyo waa cuntooyin aan isdhihi karo borotiin wanaagsan ay ilmaha ka helayaan lafahooda iyo jirkooda oo idilna way u baahan yihiin hooyo kastana waxaan rajeynayaa aad weyn inay uga heshay waxyaabaha aan soo geliyo bilis hadee ku taa walaal markuu aad ay timaadid subscribe iyo sar awlada ila joogtana muuqaalka ilaa garay hada igu cusub tahay xitaa ilaa garay muuqaalka waa like wax badan ay tiraysaa hooyo walba cusubna u share gareey iyo hooyooyinka aad garaneysaan oo saaxiibadeyna ah meeshan waxa uga jeedaan in waa digsi dabka ayuu saaran yahay waxaa ku jiro hal xabo oo bardha ah ayaad soo diyaarsanay waad soo diiraysaa ama dubka ayaad ka soo fiiqay waad soo dhaqay waad ku shubanaysaa markaas ka bacdi waxaad sameynaysaa biyo hal bakeeri ah ayaad ku daree dabka ayaad la saareedaa biyaha hal bakeeri ama bakeeri soo dhow ayaa uga dhiganaysaa dabkana waa u gaabinee ilaa ay bardhada ka jilacdo wax yar oo biyo ahna ay kuugu haraan biyaha aad inay u macnaha ay u dhameysato lama rabo in biyaha ay wax badan ay noqdaan lama rabo bardhada markay ku jilacdo xoogaa wax yar oo biyana ay kuugu jiraan ayaa waxa soo qaadanayda mashiinka wax lagu shiido ama usha lagu budeeyo ama lagu shiido qudaarta ama cabitaanaadka wuxuu loo baahan yahay in lagu sameysto qof walbana way garanaysaa kulley cuntooyinkan hadda iyo jeer waxaan ugu talagalay hooyooyinka heesto caruurta yaryar oo 6 bilood jiro ilaa sanad waayo hooyooyinkaas marka koowaad ilmaha ay ku bilaabayaan cunto ilmaha waxay u baahan yihiin cuntooyin fudud oo isku dheelatiran jirkoodana siinayo waxyaabaha ay u baahan yihiin oo koriimadooda ka caawi karo hooyooyinkaas waxay sameyn karaan qaabkan aan u sheegay ay inta u sameystaan caagado yaryar oo waxa jiro lagu diyaarsado cuntada ayadoo fresh ah ka bacdina talaajada lala gashto oo intii aad u baahan tahay markaas aad ka isticmaali kartid caagado yaryar waaye oo ilmaha markaas intay ka qaadan karaan camal ku qiyaasi karo adi mar 4 ku imaadaan mar 6 ku imaadaan mar basi ku imaadaan marka caagadahaas oo kale ama hadii kaleeto wixii aad isdhahi kartiin ilmihiina meel oo la dhigta inkastee alaabta lagu diyaarsado waxyaabaha talaajada lala gashto caruurta cuntooyinkooda aad ay u wacan yihiin in aad ku shubatid markasto cuntooyinkan jilicsan ilmahaaga waxay ka saacidi karaan koriimada ugu macquulsan oo ugu wanaagsan waayo hooyooyinka markasto wax yar ma soo kari karaan waxa u wanaagsan bisha koowaad oo kale in cuntooyinka sidaan camal intay u sameeyaan waliba hooyada markay shaqeedo talaajada ay gashato hooyo kastana aad u weyn hooyooyin badan oo waxa jiro kilibkan u baahan wax badan ka saacidi doono haday dhibsan jireen caruurta in mar walba cunto ay u kariyaan wax badan ay ka faa'iidi doonaan muuqaalkan taas waa quraacdi koowaad waxaan guda galeynaa qadada ilmaha jiro 6 bilood ilaa sanad waxa soo diyaarsanayda bucur guduud qof walba kulli way garanaysaa oo meel walba joogto Soomaaliya ka tirsan ama daafaha caalamka oo Soomaalida ah bucur guduudka nafaqooyin badan ayaa ku jiro miisaan kordhin ayaa ku jirto ilmaha fitamiino isku dheelatiran ayuu siiyaa mana ka maarmaan mar walba weeygi ugu yaraan 2 mar waa inaa cuntada ugu sameeyid ama kaligiisa aad u karisid ka bacdina ama yoogad ugu dar ama moos ugu jijabi ama hadii kaleeto wax yar oo malaba caruurta hadii sanadka weyn yihiin ayaa loogu daraa bucur guduudka waxyaabo badan oo fitamiino ah ayaa ku jiro oo ilmaha inaba aysan ka maarmin hooyo kastana aan rajeynayo wax badan inay ka faa'iido bucur guduudka caruur waxa jira kaligiisa la siiyo aad u weyn waxtar badan oo u siiyay waliba cunto kale asagoo la siinin ayaa la siiyaa ilmaha wax badan ayuuna u taraa ilmo badan aan garanayo oo waxa jiro bucur guduudkaas aad u weyn oo intifaacay bucur guduudka waad soo qaaday xoogaa qiyaastaada ah ka bacdi waad jarjaray qolofka marka ka fiiqdid waad dhaqaysaa waxaad ku shubanaydaa shabaq wax lagu uumiteeyo oo digsiga lagu rido ama hadii kaleeto baastamiir caadi ah ayaa digsi biyo inta ku shubtid korka ka saaray kadib waa ku daboolay ilaa uumiteeday biyaha ka soo baxay ku jilciyaan bocorkii
ma fahamte marka waxaad sameynaydaa hadduu rabbi idmo markuu kuu jilco waad soo qaadaydaa waxaad ku shubanaysaa mashiinka wax lagu shiido nuucuu doono markaas ha ahaado aad haysatid kabacdi waad ku shiiday haddii aad istiraadid waa adeeg ama adeegu kaa noqday waxaad ku qoosi kartaa caano ama biyo caanaha formulada caruurta aad haysatid ama biyo waa isku mid labadooda inkastay caanaha si fiican yihiin kadib cunugaaga qada dhameystiran ayuu u noqonayaa maadaama ilmaha 2 wiig ilaa 3 wiig oo ugu horeeyo ay u fiican tahay calooshooda tartiib in loo baro cuntada aysan fiicneen hal mar cuntadii in lagu sii daayo waxay ka qaadi karaan caruurta cunto hal mar markii la wada siiyo cunto culus ayaan ka hadlayaa markii la siiyo waxay ka qaadi karaan calool majiir waxay kale ka qaadi karaan cunugii in abiteedka uu ka xumaado uu noqdo cunug calooshiisa dhan aad ay u soo qasan tahay waxyaabaha qaar caruurta ma xamili karaan marka waxaad kala ogaa kartaa saan goonigoonida marka ugu sameeyid waxaa ku kala fahmi kartaa caruurtaada cuntada ku qabo dhibaatada calooshiisa la qabsi karin oo dhib badan oo ka helayo iyo cuntada u fiican ayaa ku gara kartaa markasto cuntada gooni marka ilmaha bisha hore loogu sameeyo waa mar walba cunugaaga systemkiisa aad gari kartid oo aad noqon kartid hooyo xog ogaal ah oo caruurteeda had iyo jeer kala og waxyaabaha jirkooda u fiican iyo waxyaabaha dhibaatada ay ku qabaan ay ku xanuunsan karaan bucurguduudkan fitamiino badan ayaa ku jira cunuga wuxuu siiyaa miisaan aad u badan oo kaala arag ah oo cunugaas isaga dhan kaala arag qurux kaliya ku noqonaya haddii aad uga dhigatid quraac ama qado ama casho waa isku hal laakiin aniga waxaa maanta noogu talagalay quraac qado casho iyo casariyo iyo inta u dhaxeyso quraacda qadada waxyaabaha la sii lahaa ayaan ugu talagalay waa muuqaal fuul ah ka faa'iideysta bucurguduudkan ilmahaaga sidaan marka ugu diyaarsatid maasha Allah tabaaraka raxmaan waxyaabo badan oo fitamiino ah ayaa ku jiro ay ka heli karaan ilmahana ha ka caajisinina haddii ay ka caajiseedid sida hore aan kusoo sheegay ayuu fiidiyogan quseeyaa ku sameyso soo gado alaabta loogu shubo ilmaha cuntada markii la diyaariyo oo la kariyo oo loogu talagalay hooyooyinkana cayo mar walba inay wax kariyaan 6 bees ama 6 qayb ama 4 qayb ayuu kala leeyahay alaabta soo gado ku shubo inta diyaarsid markuu ku qabo ku shub talaajada la geli waxa kale oo soo qaadanayda cashadii aan ugu talagalnay caruurta beetroodka aad u weyn fitamiino badan ay caruurta ay ka heli karaan fitamiinadiisana meel soo koobi karo xoogaa beetrood ah ayaad soo qaadanaya waad fiiqaysaa waad jarjare kabacdi waxaad sameynaya digsiga ku shubanay biyaha ku darsanay waad karinaydaa marka xoogaa yar oo biyihii uusan dhameysan mashiinka wax lagu shiido ayaad ku shubaydaa then waxaad sameynay baaquligii oo ilmahaaga inaa wax ku siidid aa ugu talagashay ayaa ku gedisanaydaa kaala arag waayo fitamiino dhameystiran ku jiro ilmaha dhiig la-aan tahaayo aad u weyn u caawinayaa ilmaha miisaankooda aad u hooseeyay dhiigiisa wixiisa dhan wuu ka qayb qaadanayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu